xidiga Cristiano Ronaldo ayaa u muuqda mid soo dhamaaday mustaqbalkiisa Juventus iyadoo maalmahan dambe xaaladiisa aad loo hadlayo taasi oo ka dhalatay liijab xumadii seasonkii u dambeeyay ay la kulantay cajuusta taasi oo la yaab ku noqotay Andrea Pirlo waxay kaalinta afraad ku dhameysatay kala sareynta horyaalka Italy ee Serie A waxaana si la yaab leh uga soo reebtay Champions League kooxda ka ciyaartay horyaalka Portugal ee Porto. Ronaldo inkastoo uu abaalmarino fiican ku guuleystay haddana wuxuu u muuqdaa mid safar ah halka Juventus ay siiso xidigan adduun lacageed oo gaaraya 31 milyan oo euro sanadkii. Xidigan 36 jirka ah ayaa haysan wax dooq ah ama fursad uu ugu laabto kooxdiisii hore ee Real Madrid taasoo horay uu ugu soo tagay. El Granatino ayaa sheegay bishii Abriil in Ronaldo uusan ku noqon doonin kooxda Real Madrid isagoo raaciyay intaasi wax dareen ah ama saameyn ay ku yeelan doonin. Wuxuu heshiis kula jiraa kooxda Juventus waa sidoo hadalka u dhigay. Wuxuu kaloo sheegay inuu jecel yahay Ronaldo wax badan uu qabtay kooxda Real Madrid. Si kastaba ha ahaatee kooxaha Paris Saint-Germain iyo Manchester United ayaa si hoose loola xiriirinayaa xidigan ku guuleystay 5 Ballon d'Or. Sida laga soo xigtay wargeyska Marca, wakiilka Ronaldo ee Jorge Mendes ayaa u duulay dalka Italy si uu Juventus uga hadlo arrimaha bixitaanka xidigan. Wuxuu muddo sanado ah ka soo shaqeeyay arrimaha suuqa xidigan isagoo ku guuleystay Manchester United, Real Madrid iyo haatan kooxda Juventus. Haddii uu ku guuleysto Manchester United ama Paris hadda waxa jeebkiisa ku dhici doona lacag aad u badan iyadoo labada koox ay diyaarinayaan isku day ah swap deal ama xidigo la kala wareegsanayo. Sidoo kale wargeyska wuxuu ku daray inay jiraan warar sheegaya in macallin Ole Gunnar Solskjaer uu Pogba qayb ka dhigi doono heshiiska kala wareegsiga taasi oo ka dhigan in labada ciyaaryahan mid walba kooxdiisa hore u laaban doono waa haddii ay dhacdeen. Mustaqbalka ciyaaryahanka reer Faransa ayaa ku jira xaalad kacsan isagoo galay sanadkii u dambeeyay ee heshiiskiisa kooxda. Juve waxay mar walba ku raad joogtay soo celinta xidiga 27 jirka halka Pogba naftirkiisa uusan weligii ka hor imaan ku laabashada horyaalka Italy. Taageerayaasha United ayaa aad u jecel soo laabashada Ronaldo iyagoo aaminsan in ay weli qabyo u tahay shaqada United. Wuxuu kula guuleystay Ballon d'Orkiisii ugu horeeyay iyo Champions League ugu horeeyay sanadkii 2008 ka hor inta uusan ugu biirin Real Madrid adduun lacageed oo gaaraya 80 milyan oo euro. Si kastaba ha ahaatee kooxda Paris Saint-Germain ayaa isku dayeysay in ay United ka dulqaado xidigan halista ku ah diilinta ganaaxa kana mid ah xidigaha ugu halista badan ee abid kubadda cagta soo maray. Wararka ayaa sheegaya wakiilka Ronaldo ee Jorge Mendes inuu u duulay dalka Faransa isagoo lagu wado inuu wada hadal la furi doono kooxda Paris Saint-Germain oo iyada damacsan in weerarkeeda kula xoojiso Kylian Mbappe iyo Neymar waa haddii uu noqdo qorshaha sidii la rabay. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ugu dambeyn gacanta ku dhigtay superstar-ka reer England ee Jadon Sancho oo ay muddo dheer daba socotay kaasoo ay hore ula sii gaartay heshiis shakhsi ah balse ay harsaneyd in kooxdiisii lala xaajoodo. Manchester United ayaa laacibkan ka dhigatay bartilmaameedkooda koowaad ee xagaagan iyadoo suuqii xagaagii horena ay mar ku dhoweyd inay la saxiixato balse mar dambe la isku fahmi waayay. Sida uu haddan barta Twitter-ka ku shaaciyay wargeyska Daily Mirror, labada kooxood Manchester United iyo Borussia Dortmund ayaa heshiis ka gaaray iibka Jadon Sancho waxaana kaliya harsan in lacagaha la kala wareejiyo. Warka ayaa intaa ku daraya in Manchester United ay bixinayso 75 milyan oo gini iyo 5 milyan oo kale oo dheeraad ah oo ku xirnaan doona guulaha uu laacibkan la gaaro kooxda Man United. Kooxda Man United ayaa hore laacibkan ugu gudbisay laba dalab oo midkood laga diiday markiiba maadaama uu ka hooseeyay qiimihii ay Dortmund ku xirtay saxiixa laacibkan. Laakiin dalabkii ugu dambeeyay ee Manchester United ka gudbisay oo ahaa 77 milyan ayaa labada kooxood isla qaateen in la aqbalo laakiin isbedel aan badnayn lagu sameeyo. Halkii ay Manchester United ka bixin lahayd 77 milyan oo cash ah waxay labada kooxood ku heshiiyeen in United ay bixiso 75 milyan oo gini iyo 5 milyan oo kale oo ku xiran bandhigiisa oo ay dib u bixin doonto kooxda. Manchester United iyo Borussia Dortmund ayaa midkoodna faahfaahin ka bixin heshiiska ay gaareen balse warbaahinta ayaa sheegaysa in is-afgarad la gaaray oo kaliya uu harsan yahay in la dhameystiro qaabka uu Sancho ku noqonayo ciyaaryaha Man United ah taasoo ay ka xigto inay bixiso lacagta ku xiran. warar ka soo baxaya gudaha Ingiriiska ayaa sheegaya in kooxaha Man United iyo Borussia Dortmund ku heshiiyeen saxiixa Jadon Sancho. Wadahadalada ayaana maraya meelihii ugu dambeeyay kooxda ayaana u muuqata mid dhameystiri karta saxiixa daayarkan reer England ee kooxda Borussia Dortmund. Saxafiga reer Italy Fabrizio Romano ayaa soo jeediyay in heshiiska Sancho uu haatan ku dhow yahay in la isku raaco sida uu ku qoray boggiisa Twitter-ka. Daayarkan ayaa muujiyay inuu yahay mid ka mid ah dhalinyarada ugu tayada fiican kubadda cagta adduunyada intii uu ku sugnaa horyaalka Bundesliga. Tababaraha
kooxda Man United Ole Gunnar Solskjaer ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad ula dhacsanaa qaab ciyaareedka xidigan uu ku soo bandhigay kooxda Bundesliga ee Borussia Dortmund. sidoo kale Ole ayaa ku qanacsaneen qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen xidigaha ku sugan kooxda sida Antonio Martial, Daniel James iyo Jesse Lingard kuwaasoo ku fashilmay kooxda muddooyinkii ugu dambeeyay. sida la rajaynayo haddii ay wax walba ku soo dhamaadaan, taageerayaasha kooxda ayaana ka fikiraya sida uu xidiga reer England ugu haboonaan karo safka xilli ciyaareedka cusub ee fooda inagu soo haya. Solskjaer ayaana u isticmaali doona Jadon Sancho boosas kala duwan, taasoo haatanba taageerayaasha si weyn ay isku weydiinayaan safka kooxda. saddexdan qaab ayaana loo arkaa in ay kooxda ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub fooda inagu soo haya. mid ugu horeysa ayaa ah shax 4-2-3-1 taasoo Sancho garabka midig loo isticmaali doono. Sancho ayaa ku qanacsan labada garab midkood, laakiin waxaa laga yaabaa in meesha ugu cadcad ee laga ciyaarsiin doono ay u badan tahay garabka bidix ee weerarka. Antonio Martial wuxuu ahaa mid aad u niyad jabsan xilli ciyaareedkii hore, waxaana loo badinayaa inuu noqon doono ciyaaryahanka booskiisa seegaya haddii uu Sancho uu usoo dhaqaaqo kooxda. qaabab kala duwan oo safkan ah ayaa sidoo kale noqon kara Marcus Rashford oo garabka midig iyo Mason Greenwood ama Edinson Cavani midkood oo ah weerarka dhexe, taasoo ku lamaanaysan garabka bidix ee weerarka Jadon Sancho. midda labaad ayaa ah shax 4-3-3 taasoo Sancho garabka midig ee loo isticmaali doono. Sancho ayaa kusoo bilaaban kara garabka midig ee weerarka, iyadoo Rashford laga yaabo in uu kala wareego Martial dhanka bidix, kadibna mid ka mid ah Greenwood ama Cavani ayaa hogaaminaya weerarka dhexe ee kooxda. Sancho oo dhanka midig ka ciyaara ayaa laga yaabaa in ay la micno tahay in uu u ciyaaro si heer sare oo dabiici ah. sidaas darteed in Cavani uu bartilmaameed ka dhigto dhexda ayaa noqon kara isku dhafka ugu fiican ee qaab ciyaareedka kooxda.